haddii aad hore isku weydiin jirteen maxaa si ka ah shacabka reer Jabuuti, maxaa ugu wacan ficil la'aantan, damiir la'aantan ee iskugu daawanayaan dulmigan iyo dullinimadan ay ku jiraan. haddaba maanta su-aashaasanu ka jawaabanayay, fadlan ila dhegayso ilaa dhammaadka. muwaadinka reer Jabuutiyow, muwaadinada reer Jabuutiyey, dhalinyaroy, mar kale dhegtiina isiiya fadlan. haddii aad hore u maqli jirteen ama mar un aad isweydiiseen ood istirahdeen war maxaa si naga ah, war maxaa damiirka naga qaaday, maxaa naga dhigay ficil la'aan, haddaba jawaabtiinu waatana dhegaysta. ilal lagu kalsoon yahay oo ka shaqeeya xafiiska biyaha ayaa waxay noo sheegayaan ama noo xaqiijiyeen in ay run tahay in taliskan mucangaga ah uu sixirka u soo dhex mariyo shacabka reer Jabuuti, biyaha ay cabbayaan, ku qubaysanayaan, ku weysiisanayaan ama ay cuntada ku karsanayaan. marka waad garan kartiin walaalayaal, halka laydinka dilaayo iyo halka uu wahabkun idinka hayo waa halkaas wey. haddaba su-aasha meesha taale waxa weeye, suuragal may tahay in sixirkaasi dadkaasoo dhan wada qabto, in biyaha loo adeegsan karo sixir? waxaan hore u ogeyn in taxliisha marka la sameynayo biyaha qur-aanka lagu akhriyo, qoftii garanaya amba arkaya amba goobjoog ahaa ayaa xaqiijin kara in biyaha taxliisha marka lagu akhrinayo bartamaha inta la dhigo, daboolka laga qaado, qur-aankii lagu akhriyo, bacdina lagu afuufo. taa waan ogeyn, laakiin in dadka lagu sixro waa wax jiro oo xaqiiqa. waxaana noo caddaynaya hadalka muuqaal kan aad arkaysaan waa saaxir hore oo Suudaaniya oo sixirka ka shaqayn jiray, oo adeegsan jiray ama ay u shaqayn jireen 286 jin, isagoo mataqaanaa xogogaal u ah sixirka ayaa haddaba waraysi bixiyey. ilaahayna wuu toobad keenay imika. markaa su-aalihii la weydiiyey, su-aasha u muhiimsanayd waxay ahayd, sixirkii kugu weynaa ee halista ahaa amba halista badnaa ee aad samaysay muxuu ahaa, maxaana adeegsatay, maxaana u samaysay? haddaba su-aashu marka uu ka jawaabaya wuxuu leeyahay, biyaha waa biyo waxaan isticmaalay sixirkayga u weynaa, aan rabay inuu ii hirgalo, waxaan u isticmaalay biyahan u dhex mariyey. markaasuu ku yidhi, maxay ahaydna sababtaad u samaysay? wuxuu ahaa qof aan rabay in uu abidkii guursan, guurkaba dacar baa looga dhigay, qarmoon baa looga dhigay, wuxuu arkayaaba wax xun, weligii ma guursanay abid. waa tusaale. waxay ka dhigan tahay waxyaalo kalena waa loo adeegsan karaa. kolka sixirku ma jira? haa, waa jira. marka ma in laga cabsooda? maya, maaha in laga cabsoodo. waayo ilaahay baa qur-aankiisa noogu sheegay subxaanahu watacaala, wuxuu leeyahay, wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illaah. kuwaa saaxiriinta ah wax kasto ay laaqayaan, cidna ma durayaan, cidna ma dhibaateeyaan, ilaa uu ilaahay ugu talagalay mooyaan ama imtixaan kale ka wada mooyaan. aayad kale ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay, qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana. nebi maxamedo waxaad tidhahdaa salawaatullahi caleyh wasalam, waxba nagu dhici maayaan ilaa wuxuu ilaahay qora mooyaan. marka sixirku waa jiraa, waa xaq wey inaad qirato, laakiin inaad aqoonsanaato inuu jiro, laakiin inaad ka cabsoto maaha. kolkaa dhalinyaroy, hurdada ha laga kaco, ha la foojignaado, hana la kala barto adowgaaga iyo sadiiqaaga. أقوى سحر عملته وشو؟ في الماء. وش كان يعني إيش المستهدف من السحر؟ المستهدف من السحر ربط الرجل لا يتزوج. لا يتزوج. لا يتزوج. يعني منتهي، يعني هو زي المرض، يعني ما يمكن فعل في أي امرأة.